musharaxa madaxtinimada xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Ciro oo maalmihii ugu dambeeyay socdaal ku joogay magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa wareysigan khaaska u siiyay telefishinka Hoon Cable TV waxa uu kaga hadlay xaaladda magaalada Burco waxa uu sheegay in Burco baahi weyn ay u qabto caafimaadka taariibki saameeyay sidoo kale waxa uu sheegay inuu jabin doono gidaarka qabyaaladda isagoo ku sugan xarunta ololaha doorashooyinka xisbiga wadani ee magaalada Burco ee gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa uu yiri مشاكل Somaliland iyo gobolka Togdheer ba runtii way balaaran yihiin marka la eego arrimaha bulshada waxyaabaha aanu dareenay shacbiga dareenkoodana ka qaadanay waxa kamid ah caafimaadka isbitaalka guud ee gobolka Togdheer oo isbitaalkii uu dhisay maamulka Ingiriisku oo mid kale aan laga dhisin gobolka adeegiisa waxa ugu dambeeyay adeeg wanaagsan helaan gobolka Togdheer hay'adii MSF intii ay joogtay muddo 3 sanadoodna uu ka maqnaa marka adeeg cusbatalku bixiyo aad iyo aad buu liitaa waana cusbatalkii loogu talagalay magaalada waqti ay yarayd waxaanay xarun u tahay dhammaan gobolada bari marka waxaan leeyahay baahiyaha ugu weyn ee degdega badan ee gobolka Togdheer caafimaadka kamid ah insha Allah waana qorsheynayna inaan wax ka qabanno hadii Ilaahay ka dhigo gobolka Togdheer markii aan wareysanay dadkii aan kaararka qaadan oo sodoneeyo kuna waxay isku raaceen dhammaan bulshadu dadkaasi inay u badnaayeen dhalinyaradiina tahriibtay marka arintaasi waa arrin xanuun badan ku haysta qaranka guud ahaan iyo waalidiinta iyo shacbiga gobolka Togdheer arrintaasina waa arrin aan xusayno tahriibkan insha Allah waxaan ku talagaleynaa in rajadii shacbiga rajalaan bay u dhoofeen la soo celiyo arrinta saddexaad aan xusayo inta badan waxa maqli jirteen Burco bari iyo Burco galbeed waaslee dawadii arrintaasi waxay ku jirtaa oo wada xisbiga wadani midnimada way bilaabantay gobolka Togdheer annaguna gidaarka taagan ee jiray waa burburinay waxaana maragu ah kacdoonkii shalayto oo aan bari iyo galbeed u kala qaybsanayn Burco midaysan bay haayeen oo laga yaabay in barigu u badnaa gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Ciro wareysiga uu siiyay Hoon Cable TV sidoo kale waxa uu kaga hadlay oo uu sheegay in Soomaaliland u baahan tahay madaxweynaha aqoonsiga uu keenay isagoo sheegay in xisbigiisa iyo isaguba ay Soomaaliland u keeni doonaan aqoonsiga waxa uu sidoo kale jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray musharaxa kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxaanu yiri sharax Muuse Biixi waxaan isleeyahay ruushka intaan joogay iyo intii isagu joogay waa laga yaabaa intii isagu joogay inay badnayd way isagoo arday uu tagay sarkaal military ahaa waxa laga yaabaa 6 sano 7 sano inuu wax ku baranayay dalka ruushka intii aan ka shaqeynayay anigu inta kama badnayn Mareykanna isaga iga horeeyay waxbarasho u tagay waxaan leeyahay intaan qurba ku maqnaanayo Muuse ma kala badnin inkastoo laga yaabo markasta igu tilmaamo qurba joog waxaan leeyahay waan isu tirin doonaayo intaad qurba ku maqnayd iyo intaan qurba ku maqnaa waxa laga yaabaa in intaad qurba ku maqnayd ay badato midna isaga qiray oo arrimaha dibadda inaan kaga fiican isaga qiray waxaan isleeyahay maanta Soomaaliland waxay u baahan tahay aqoonsi caalami ah oo beesha caalamka ah insha Allah qorshaha xisbigana waa kamid in la helo inay Soomaaliland kamid noqoto beesha caalamka waxyaabo badan oo maanta mushkilado haystana waxaan ku arkaa in xalkeedu halka ku jiro arrimaha gudaha markaa soo noqdo waxaan leeyahay geedaan soo istaagin Somaliland ma jirto waxaan kamid ahaa dadkii aasaasay xisabtii ugu horeysay ee qarankan yeesho waan kamid ahaa asaasayaashii xisbiga wadani imakana oday u ah xisbiga wadani waxaan leeyahay wadanka gudihiisana in anagu Muuse kaga badsaday ma qaba Xamse Ali Bulbul Hoon Cable TV